noloshu sucuubaad bay leedahay waa daali kartaa mushkilad baa ka hor iman kartaa waxaasi laakiin waxa loo baahan yahay inaad ka dulboodo waxa loo baahan yahay taaqaadkii kugu kaydsanaa inaad dib u adeegsato waxa loo baahan yahay inaad isdhiibin nolosha isdhiibka ugu liita waxa loo baahan yahay markaa inaad tidhaahdo waan qaban karaa waa qaybi karaa nolosha ma jiro waqti firaaqa laye waayo noloshu waqti firaaqa aba ma leh mar kasta hawl nooca un baa ku haysataa saadaradeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan haddaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyada baatilka kugu mashquulinaysaa adigu shughulba waayi maysid mar haddaanad shughul waayin adigu shughulka xadee shughulka aad rabto inaad qabato ha noqdo mid adiga kaa soo fulo ahmiyad kuu kale leh oo priorities kuu kale fog jahliga aynu nafteenna jaahil ka nahay ayaa waxay keentay inaad arki weydo xoogga alla ku siiyey subxaana wa tacaala iyo awoodda aad haysato mushkiladeenna waxay tahay hankeennaa yaraaday hankaynu niyaddaynu hayno iyo hanka aynu hayno iyo waxa aynu isleenahay xaqiiqi baa yar marka horeba meel fog baanad kaba fakaraynin qofka bini'aadamkana hadduu hankiisu yaryahay waxba maaha ilaahay horta wuxuu ina leeyahay wa fii anfusikum afalaa tubsiruun وعلم آدم الأسماء كلها آدم مقع عردن با إلهي بري سبحانه وتعالى آدم عقل جيسو وحو قاضي وح عجز قليي ملائكته آدم عقل جيسو وحو قاضي محي سا قرآن كنت الماميو وح عجز قليي ملائكته با آدم عقل جيسو قاضي هدا آدم إنن كيسو مدد نطي مالك لك مادي من آدم كا إلهي لي سبحانه وتعالى أسماء عردن با الله بري inankiisii baatay taa macnaheedu waxa weeyaan inaad wax kastaba samayn karto si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay haddii aynu iska reebno afkaartan laynagu akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa sacab waa col hortiijabayay taasi haddii taa la reebo waxaan leenahay wax badan oo fududaanaya baa jira waxa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا نكدداله إذا أنت سو آخرتها إلهي سبحانه وتعالى وأوغا مهد عليها وحلينا قفك عالي الهمة قاهي وقف وقتك بخيل كواه نبي محمد عليه الصلاة والسلام حين ليه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان نبي عليه الصلاة والسلام وحط المام يا مؤمن كحوجا إمام النووي وحلي حوجا لشيء وقوة نفسية بولي مؤمن كحوجا باك خير بدن بو نبي يقول مؤمن كضعيف كا لبدا بنا خير باكو جرو دي إيمان باكو جرا نبي حين لا يحرص على ما ينفعك احرص لبدا ولا شيء كد دال بالليل وحكو أنفعيا وحاوين لي نبي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله ولا تعجز لبدا ولا شيء إلهي كالميس سبحانه وتعالى يمرنا بها عجسنين عجسك وويني وأدقو أودا دا أركي وايه إن آدمكي ولالكي دليواكي أودي سيباركي وايه دابتنا ولالكي ونتورتسكي قسيتي إلهي سبحانه وتعالى أصدر محي غراب تكوح برا دابتنا وحولي عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى أخي warma waxaan ka caajisay ma waxaan ka hoos maray tukaha kan xoogga wuu qabayay jahliga hayay xooggiisii wuu qabayay tukahan in cilmiga ku kordhiyay jahliga hayay tukahan silsiladii ku xidhnayd buu ka furay wa silsiladan raba inaynu galabta iska furno yani qof bini aadam oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo wax qaybi karin ma jiro bal waxaan tilmaamaynaa leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa saxiixaynka ku yaala bal ay abwaabta u samaysteen baabu tacawud min aljubni baabu kada ay abwaabta u samaysteen waxaa ka mid ah
saxiixaynka iyo qayrkiiba ku soo arooray ducada nebiga inay ka mid ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay ka magan galo allahuma innii acuudu bika min alcajsi walkasal bale waxay ka mid tahay awraadda yowmiga laga rabo qof kastoo muslimi inuu akhriyo subax kasta markaad soo toosto waxaad tidhaahdaa baa lagu leeyahy ilaahu waxaan kaa magan galay cajsigu waa cadam alqudra iyo kasliguna waa wixii aad awooddo ka wahsato ilaahu awood darran kaa magan galay iyo wahsi iyo tamardarro dariskan markaa maanta aan isku dayaya inaan akhriyaa waxa weeyaan waxaan rabaa mindaarka ama maxaa la yidhahaa mikriska waxaan nolosha waxaynu ku eegayno inaynu change garayno muraayadaynu xidhannay aad u qallafsan muraayadaha qallafsani waxay suurto gelin kari waayeen inaynu noloshii xaqiiqada ahayd aragno taasaa waxay keentay markaasi in taaqaadkeen iyo awooddeen iyo dhamme ay cadilanto oo waxba aynu garan kari weyno taasaa waxay keentay in maalinniba maalin inoo dhiibto shaqo walo aynu qaban karnaba aynu isdhahno berri sanadka dambe markaad soo firaaqowdo bal hadhow baad wakhti u daydayi doontaa noloshana mar la firaaqoobaaba ma jiro waxaan rabaa markaasi maanta cilmi idinku kordhin maayo laakiin silsiladaan idinka jebinaya yacni waxaan rumaysnay in silsilada inagu xidhan yihiin brograaminkii hore ayaa formatting laydinkaga samaynaya tacrifuun luqat alcombyuter waa taqaanin baan u malaynaya shayga marka dib loo masaxayo waa la formaat gareeyey bay yidhaahdaan waxaan rabaa in maskaxdiina aad dib u formaat garaysaan ka formaat garaysaan cajsigan iyo wahniga kan iyo waxba lama qaban karo taa meel inaga dhiga ilaahay wuxuu ina siiyey subxaana wa tacaala maskaxdani aad bay u yartay jidhkeenna markaa lagu miisaamo bay yidhaahdaan waa 2.5% wasniga jidhka waxay yidhaahdaan waa 1330 garaam meelahaas bay ku tilmaamaan isku celcelintu kiilo iyo waxoogaa yar weeyaan maskaxda kugu jirta haweenkana bay yidhaahdaan raggu 40 garaam buu ka weeyay yani isku celcelinayana 40 garaam bay ka miisaan yaryihiin maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la yidhaahdaa jidhku waxaad oxygen neefsato oo dhan dib u jiido rubuc ka mida keligeed baa cunta allaaliya waxaad oxygen cabto rubuc ka mida maskaxdaasaa cabta maskaxdaa waxaa ku jira balaayiin unugyo ah maskaxda inugu jirta waxay yidhaahdaan 22 decimeter decimeterka ma taqaanin centimeter maaha hoos uga sii kac decimeter 22 decimeter oo murabbac ah yani square ah 22 decimeter intuu leegyahay somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar centimeter waa decimeter 22 decimeter oo square oo maskaxda bini aadamka ka mid bay yidhaahdaan waxa ay qaadi kartaa 20 milyan oo volume ama buug inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa legaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxa ay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 milyan oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan maalan axad alculamaa waa professorka la yidhaha mark rosizan oo ka mid ah culamada maskaxda daraasaysa ee jaamacadda california sanawaad badan buu daraasaynayay kadib buu wuxuu leeyahay haddii buu yidhi maskaxda bini aadamka maalin kasta 10 macluumaad fi thaniya loo sheega buu leeyahay second kasta 10 shay haddii loo sheega buu leeyahay secondka waa albadhaqsi halka minute baa 60 second ah second kasta ama thaniye kasta oo ka mida nolosha qofka haddii loo sheega buu leeyahay 10 shay 10 macluumo loo sheego muddo 60 sannadooda lagu wado habeen iyo maalintoona aan la kala joojin waxaad qiyaastaa second kasta 10 baa lagu sheegayaa shay 60 sannadood baana lagugu wadayaa habeen iyo maalinbana waa lagugu akhrinayaa wuxuu leeyahay macluumaadkaasi maskaxda bini aadamka ma buuxinayaan 1 على مليون من حجم العقل buu leeyahay 1 على مليون من حجم العقل sida daraaddeed bay waxay ku tilmaamaan insaanku maskaxda ku jirta awoodda alla siiyey maba isticmaala bay leeyihiin 10% mooyaane boqolkiiba 10 ayuu ka isticmaalaa bay leeyihiin
waxa lagu tilmaamaa qoladan computersku waxay ku xisaabtamaan gigahertz inuu processorku inta uu gigahertz uu per second jari karo waxay yidhaahdaan maskaxda bini aadamku 400 مليون عملية حساب في الدقيقة سمين كرتها waxay ku tilmaamaan maskaxda bini aadamku 30 بليون معلومة أي في الثانية معالجة ku samayn kartaa يعني كمبيوتر dunida yaalla saamo ma qabto waxa lagu tilmaamaa maskaxda bini aadamka iyo xidhiidhada unugyadaadu leeyihiin 600 mayl cable-ka iyo wire-ka la dhigi karo ayaa u dhaxeeya bay leeyihiin iyada xidhiidhadeeda daakiraduna waxay ku xidhan tahay bay leeyihiin inta xidhiidh ay samayso waxay ku tilmaamaan axadul culamaa baa wuxuu leeyahay haddii buu yidhi dunida waxa TV iyo telefisyon iyo raadaar iyo telegraph iyo telecommunication waxa wax lagu xidhiidhiyo dunida yaalla haddii inta la yareeyo buu yidhi caqliga bini aadamka oo kale loo ekaysiiyo waxaasoo dhan waxa iskaga badan buu leeyahay bini aadamka maskaxdiisa yacni all telephone dunida yaalla wax allaaliya waxa switch dunida yaallo la isku daro maskaxda adiga ku saaran intay process gareyn kartaa ka badan sida daradeed ayuu axad ulama waxa uu ku tilmaamaya haddaynu isticmaali lahayn buu yidhi xaasuub ama computer maskaxda uun bal ku dhow haddaynu isnaana sameeya waxa dhici lahayd buu yidhi inaynu sameeyno guri 10 dabaq ka kooban oo 770 mitir square ku yaala buu leeyahay يعني بني آدم كيبلدي وحي سادوس كحد على كمبيوتر استراتو بس كحدا يرى أديك إلهي كوجر ركبي شقة ذي قبته وحو أج وح قابن كرائن للسماية وحي قادن الله يدبولي حجم جا تضواب بقول إيه تضوابات متر سكوير أو طبعا طبق كورلود سي حجم حاسوب لك بولي برمجة سي مثال السماين كرابو ملي تاي يد الربا يعني برنامج كوش شقين لها أنت لو السماين كرايا يد الربا waxa meesha yaalla wuxuu yahay طاقada inugu jirta inta ay leeg tahay iyo waxaynu ku isticmaalnaa ayaa aad u kala yar idan inagu waxaynu shaqo ka dhiganay طاقada inta leeg ama awoodda inta leeg inaynu caatilo oo aanay waxba qabanin casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaa ay yiraahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein Einstein waa oday yahuudi jarmal asalkiisu ahaa yahuudina ah yahuudi jarmal markii dambana Mareykan noqday waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weapon-kan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxa soo dhamin nadariyaad physics uu leeyahay bay ka soo burqadeen waxa ay yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaniin waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo maray bay yiraahdeen sida daradeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeeynana aasine balaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qala iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxan ninkan ku jira iyo غير caadiga ah waxay yiraahdeen Einstein maxaa loogu tagaad u malaynaysa qof bini aadam aqligii baa loogu tagay bay yiraahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein lagama soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yiraahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad Imaam Ahmad wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyay inay maktabadiisa yihiin أبو زرع وحو الرميسنا مكتبديسو وحو قيبينay tahay Shaafici saasu rumaysnaa aa'imadii hore saasu ninku cilmigiisa laabtiisu ku sitay qofka bini aadamka gacantaada maalan hadaad halka dhigto gacantaadu dhaqdhaqaaq bay ku shaqaysaa hadaad halka dhigto 10 daqiiqo hadaad ku hayso marka dambe ku daalaysa baad leeyahay gacantiba way kabuubiyootay hadii lagu yiraahdo saacad ku hay inaad qaadiba kari weydaaba laga yaabaa hadhow ku damqato way shaqada tirtay cudwi kasto bini aadam kamid oo la shaqo tira waa nooca kan cudwiga hadii la shaqo tiro hawlgab baa ku dhaca hawlgabku soo ugu dhacaya مثال بسيط aan idin aniga igu dhacay barbaraanigo ka soconaya gaari fuushamuna la qallimay gacan baan ka jabay dabeetana bahaladan yar yar ee lafaha gacanta ku jira ay buray mid kamid ah jabtay الله يركبه إلى هالك الله يحري شان يا فرتان عشان مركي كحد نيد بالله يقفري جبوت الله يقفري
deetana waxa la yidhi wale waa ku jabantay dib baa haddana lay rakiba yurub baan la tegey 7 maalmood markay igu rakibnayd baa la furay dabeetana waxay dhaheen weli way ku jabantay ma laftii yarayd weli may rakibmin laakiin gacantaydii baa halkaa dhaafi weyday waa 90 degrees waa sidii loo xidhay ee bahashan cad loo igu xidhay ayay gacantiina joogtaa gacantiina halkaas ay joogtaa deetana waxay igu yidhaahdeen laftan yara jabtay iska illow imka khatar kale ku haysatee gacantan sidaynu kala bixin lahayn baynu tijaabinaynaa laftan iska jabnaato waxba layma qabtee physiotherapy baa lay diray halkaa dhudhunka iyo muruqa sare cududa laygu dhagaa waa layga cabaadiyaa 3 cashaan imaada xoog baa lay qabtaa waa layga cabaadiyaa marka qayliya cabaar baa lay sii daaya waskaga tagaa sidii ay maalinba in yar u kala baxaysay maalinta bayda gacmaha isku dheerari labadeedii gacmood way isleegiin ma kala gaabna tii lafti kalena waaba iska bogsatay intii tan laga cabaadinayay maxaan u jeedaa يعني waxaan uga jeedaa gacantii bini aadamkee shaqada taqaanay sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xidho way hawl qabtaa hadii la xidho sida laga dhigo way hawl qabtaa mushkiladda ina haysataa waxay tahay taaqadii allayna siiyay awoodeeni ayaynu xidhnaa markaasa waxa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in buuga wax lagu qortaa inay fiican tahay computerka iyo waxaan la isticmaalay inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqanaysaa dabeetana xad baynu gaadhnay safxadii aan idin lahaa aan qaybno haddaad akhridabada madaxu ku xanuuno ood wareerto qaadiba kari weydo laakiin waxaad u baahan tahay in yar lagu tadriibiyo in yar gacantayda inta la kala furo kale in la kala furo baad u baahantay jirka bini aadamka ahi waa sida loo train gareeyo waa sida loo tababaro in badan baynu tusaalayaal waxaynu ku bixinay kuwan wax cayaara waxaad aragteen kuwan wax cayaara nin waliba halku cayaara buu weeyay waayo uu train gareeyay kuwa feerka cayaara qaarkan sare u waaweyn mijuhu waa wax dhuudhuuban sababtoo waxa weeyaan qaarkan sare loo train gareeyaa kuwa kubadda cayaara mijaha waaweynaada qaarka sare waa wax dhuudhuuban shaarka marka iska bixiya waa feedha yar yar laakiin cagu waa waaweyn waa loo train gareeyay yani qofka bini aadamka meesha la kobciya kobocda haddaad maskaxdaada tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa wax aad u fudud maalma kamid ah waxaan galay netka dabeetana waxaan galay labadan website ee حفاظ الوحيينك لبا ويب سايت oo quraanka iyo xadiista lagu qaybo kadib waxaan arkoonay iclaan yaro meel ka laalaada oo sheegaya ma rabtaa quraanka inaad 30 maalmood ku qaybto markaasaan sidii waa qariib war mala 30 maalmood quraanka aad taqaanay 30 mala lagu ma qaybo 30kii maalmood meesha ku qorayd baan galay waa risaale ama kitaab nin qoray oo 63 page 63 bayt runtii haddaad akhrido noloshaada wax badan baa iska bedelaya waxa uu xisaabiyo oo tilmaamaya uu leeyahay wax kasta oo nolosha hadaf kasta aynu u baahanay inaynu xaqiijinaa laba shay oo qudhu u baahan yahay buu leeyahay midi waa alhimma walazima walmusabara midi waa hansare oo go'aan adag wata hanku waa qofku inuu han weynaado haddaad han yar tahay waxa weeyaan waa cigaal shidaadkii la lahaa maxay col hortii jabayay col hortii baad jabaysaa haddaad han yar tahay macnaheedu waxa weeyaan adoo waxbaba isku dayin ayaad jabaysaa laakiin qofku markuu han weyn yahay oo uu casiimana leeyahay go'aan adagna uu leeyahay kaasi waa qodobka koowaad ee nolosha wax ka bedeli kara qodobka labaad ee nolosha wax ka bedeli kara waa almaqdira awood iyo istitaaca inay jirto awoodi inay jirto awoodina way ka buuxdaayo waa lagu tusi waayay Soomaalidu waxay yiraahdaan geela baa aakhira xoogiisa la tusaabay yiraahdeen adduunka ilmo yar baa neefka geela weyn hogaamiya marka aakhirun buu xoogiisa arkaabay yiraahdaan waxaan ka baqayaa inteena badani inaynu ku dhacno aakhira inaynu aragno awoodii iyo nimcadii iyo xoogii Allahna siiyay subhanahu wa ta'ala in adduunka arkari weyni waxa laga yaabaa wali inaa u haysataan iclaankii aan tilmaamaya ahaa quraanka 30 maalmood saad ugu qaybaysaa inay mas'ala riyaa tahay waxa uu sameeyay amaliye xisaaba xisaabtu waa waxyaabaha ugu concrete ee bini aadamka lagu qanciyo amaliye xisaaba buu sameeyay wuxuu ku tilmaamay beejka quraana
imisaad ku qaybi kartaa beyj qur'aan ah aan xisaabta xagga kale ka soo maro jiska qur'aan imisaad ku akhridaa ninka gaabiya nusa saacu ku akhriya ragga carabka fududinana rubuc saac meelahaasay gaadhsiin karaa mutawasitkuna 20 ilaa 25 ayuu ku akhriyaa haddaan idhaahdo jiska nusa saacaad ku akhridaa jiska qur'aani waa imise beyj markaynu qaadanno dabcadatan Uthman Taha uu qoray yani musxafkan aynu akhrina ninbaa gacantiisa ku qoray madbacadii waxaa maaha ninbaa gacantiisa ku qoray Uthman Taha kitaabkan uu qoray wuxuu samaysan yahay qaab ah 15 sadar beyj kastaaba inuu ka kooban yahay aayad inuu ka bilaabmo aayadna uu ku dhammaado jis waliba 20 beyj inuu yahay marka laga reebo jiska koowaad ee faatixada intan la qurxiyay kaasi waa 20 beyj marka laga tago isna jiska ugu dambeeya ee jis caama ah oo isagana suuradaha calaamadahan u dhaxeeya lagu tiro badiyay isna 23 beyj ama quraanka caadiga wuxuu ku qoray maxay 20 beyj jis kastaaba sadaradeed musxafkaasi wuxuu ka kooban yahay 604 beyj haddaynu idhaahno 20 beyj ayaad gaabisaayo nus saac ku akhridaa nus saac beyjkii misaad ku akhriday marka 20 daqiiqadood qaybi waa daqiiqad iyo badh soocanka maaha beyjka waxaad akhriyi kartaa daqiiqad iyo badh qofka gaabiye 30 daqiiqadood jiska ku akhriya beyjkii wuxuu akhriyi karaa maxay daqiiqad iyo badh buu ku akhriyi karaa sadar imisaad ku xifdii kartaa markaad imisa jeer ku celiso hal sadar مثلا قل هو الله مصحف كاسي والله بس صدر قل هو الله النسكي إمي سجور مركز خردابات غيبيس يعني مصحف كامر كانوا يقولون قل هو الله النسكي وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد انت صدر إلا لم يلد إمي ساتكو غيبيس مركز إمي سجور خردا مر لبا صدح أفر شن لح تضوا سيدة إمي ساتكو غيب كريس haddii aan idhaahdo maalan 5 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo sadarka markaad akhrido 15 sadar imisaad ku akhriyaysaa marka yani sadarkiiba waxaad ku akhriyaysaa minute iyo badh soo maaha beyjkii minute iyo badh baad ku akhriyaysaa minute iyo badh haddaad ku akhriyaysay beyjkaa 20 jeer inaad akhridaa maxay keensanaysaa waa nus saaci beyjka 20 jeer inaad akhridaa waa maxay waa nus saaci wuxuu leeyahay amaliyada xisaabiga ninkani sadarka haddaan ku idhaahdo buu yidhi 5 jeer akhri oo si fiican u akhri 3 jeerna muxaawale 8 jeer baad ku qaybi kartaa haddaan idhaahdo buu leeyahay macnaheedu wax weeyaan 12 daqiiqadood baa beyjka lagu qaybaa laakiin waa 12 daqiiqadood oo tarkiis leedahay bay idhaahdaan waa 12 daqiiqadood oo aanad meel la u jeesanin idan haddaad beyjkii 12 daqiiqadood ku qaybi karto waa ninkii gaabinayaan wali la socdaa inamada dheeraynaya lama socdo beyjka haddaad 12 daqiiqadood ku qaybi karto haddii maalintii aan ku idhaahdo 5 nus saac akhri quraanka 5 salaadood salaad walba nus saac akhri waa imisa 4 saacadood iyo badh 4 saacadood iyo badh 12 daqiiqo haddii lagu dhufto 6 loo qaybiyo waa imisa waa 5 beyj dad min saacad kasta 5 beyj baad qaybi kartaa haddaad 5 intaa ku dhufato waa 22 beyj iyo badh macnaheedu waxa weeyaan 4 saac iyo badh waxaad ku qaybi kartaa markaad nidaamka 12 daqiiqo raacayso 22 beyj labada beyj iyo badhka tuur 20 beyj waa hal juz nidaamkiisa uu xisaabiyay haddaad sidan ku socoto waxaad ku qaybisaa waxa weeyaan 27 maalmood معنى هذا حوالي تقريبا صدق ما المدى وشيء وكوقايب كره وحلقة بينات هذا مستحيل وحنا مسك حسابات شيك تشيخه براكتيكال كله جماعة هي براكتيكال كا هدي أسباب الله له وهو صورة قلا وحلقة يا بامر كانت بدن تجارب تأخردان إن كوي سلف كأركتان ودوتنا الله يابتان إمام الزهري quraanka markuu baranay 18 ku qaybay yani sida bale hisham al-kalbi waxa la yiraahdaa 3 ku soo qaybay
waxay ku sheegaan rag badan marka taraajumtooda akhrido intan bay ku qaybeen intan laakiin raggaas waa raggii hore waxa odhanaysan iyagu khaariq ay ahaayeen dadaan khaariq ah inaan hadda jooga haddaba tilmaamo inaan Soomaaliyeed oo Ingiriiska jooga Ingiriisku ka yimi meelahan muslimiintu yimi subaxii buu yidhi markaan salaad subax ka baxaan fadhiistaa ilaa 7 dhowr bilood buu ku qaybay quraanka dabeetana wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat ibn Malik in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay Alfiyat Suyuti in yar buu ku qaybay wuxuu ku xigsiiyay Shaatibiyada in yar buu wuxuu soo qaaday iska qaybay ma aha bashar caadi dadka kane yani dadka ka gadisan maaha hawshaad haysaabo hayaan shaqadaad qabataabay qabtaan saddex dumar ay qabaan aabayeen caruur bay u shaqeeyaan waxaad wadaabay qabtaan laakiin xagee wax iska weydaarsan yihiin waxaan leenahay waxa wax iska weydaarsan yihiin labadan shay baa u baahan inaynu fahmno inaynu han yeelano caali ilhimma inaad noqoto qofka caali ilhimma waxa lagu yaqaanaa inuu caziimo leeyahay inaanu xamaas wixiisu ahayn laba cashiya maalintaad xamaasadooto inaad dabeetana laba cashina iswereeriso hadhownaad xagga daba kitaab ka tuurta maya inuu noqdo qof caziimo leh fa idaa cazamta fatawakkal cala allahi buu ilaahay yidhi markaad go'aansataan ilaahay subxaana wa tacaala tala saarta qofka caaliyulhimmiga waxaa lagu yaqaanaa waxa hoose kuma qanco waa ku imaam ibn aljawsi lahaa haddii buu yidhi nebinimada la odhan lahaa farsamaa lagu helayaa iyo barasho inaad wax nebinimo ka yar raadisaa waa kuu doqoniimo buu leeyahay yani meel nin maray inaad adigu ka hoos martaa waa kuu doqoniimo waad mari kartaa weeyaan waxaynu u baahannahay caaliyulhimma waa qof raba shaqada uu qabanaya inuu xoog ku qabto yaa yaxya khudi alkitaaba biquwa baa ilaahay yidhi yaxya kitaabka xoog ku qaado awood isticmaal ma yaraantun baa lagu bilaabaa maya بعض العلماء وحي قرين كتاب لا يدهده من حفظ القرآن بعد 40 بن قري أفرتنشير رجي دافيا قرآن كغيبي ومحاد قرآن شيء جيسه أزهر أئمة دين كم يدها كنت يا فرتشير بوكو بلابي وحقرسته وإمام الأكبر للأزهر لكن كنت يا فرسو مقالة يسجد شو جيمر كافري كنت نشير مريي أيودي نيوم مد وحبرتي دورته وقت بدن بابك قالوا ما هي وابلابا أزهر بو صاقله dabeetana waa soo waday waa soo takharujay imaamul azhar isagoo ah buu dhintay 9 jir daadiisuna marayso waxay yiraahdaan culamaa nafs insaanku bay yiraahdaan at-ta'wiid waxa la yiraahdo isticmaalaha wixii loo baahnaa markuu qaban kari waayay bay yiraahdeen meel kale isku mashquuliyaa si uu meel kale uga muuqan karo sheekada iyo maxaa la yiraahdaa in isku mashquulinay dabeetana xaggaasina ka wada muuqan مسألة ماشية تعالى واحد عقل بني آدم ولا بقى يبوط قيب وحلا هذا العقل الواعي قيبنا واحد كل شيء العقل الباطن أو اللا شعوري العقل الواعي وحي كتل ماما وعقل سوتشي ده وعقل التحليلية وحن حواسته أي أركته إيش يدكت يا مقلك يا درينك يا وحكن كور رما فكرة وحشاجة عقلنا وحلا وعقل الباطن عقل الباطنكو waxay yiraahdaan waa xajmi aad u weyn isagu aqal alwaa'iguna waa wax yar bay yiraahdaan laakiin waxa yar baa hogaamiye bay yiraahdaan aqal alwaa'igu marka wuxuu dhigmaa bay yiraahdaan waa naakhudaha doonta wada doon weyn buu wada laakiin isagu waa naakhuda yar aqal albaatinka waxa la geliyaa ma lumaan waxaad see u baahan tahay inaad ka dhaadhiciso شيء مركو عقل الباطن عقل الواعي كسره وكم فكره تليه ورميه ورك شيغا لكن انت تسو جيدنا وسو جيدا markaad hurdana isna uu seexda wuu maqan عقل الباطن ku isagu ma seexdo habeen iyo maalinba uu soo jeeda wixii loo dhibana waa ilaaliya عقل الباطن ka waxa wax loogu dhiibaa ku celcelin iyo ka dhaadhicin التصديق والتكرار baa ugu badan bay yiraahdaan in la fahamsiyo laga dhaadhiciyo laguna celceliyo isagu bay yiraahdeen wuxuu gacanta ku dhigo wuxuu ka dhigaa tabiica iyo sajiya iyo caada iyo suluk buu badala yani dhaqan buu badala mesela waxa lagu sheegay xadiis nabi kaleey salaatu wasalaam oo ah in midigta wax lagu cabo wax lagu cuno wax lagu qaato saxiix ma xadiiskaas aynu haynaa maalinta koowaad xadiiska lagu sheegay
الشيخ كتاب كدقي أداك فردي واد فهمت حديثك هذا هو مركز مقاهدة تكتار شاهد البطان ما بدح نسكير قادم كسو الشيخ خوي كدا مدك تقعد أتكلم كتاب مدك تقعد وين اللي بيبات الشيخ مدك تسكيعبت صادق حفر شنطة عشاء هره مرة بدح تكوي رقم مرنا بدك تو مركز دحدا مرة نسوي ما تحصلني صادق يسوي صور شيطان بنا لعبي مدك تكو قادنس لكن مركز مدود ضو أوتوماتيك بيسو بدشه كوب الله صادق يا مدك تو ما تكو قاد ولقى بدح لكو قبل ميسين واتكبرت واي واحد أنا عقل الباطن كيدكتي وما بهني دنا تفكرتوا ترى ما بدح لكو قادا ما مدك تكو فكرة لقى مرة laga ma rabayna tirada bidixdiye midigta teeba go'aan ku qaadanayay waad iska fiiqaysaa waladan wax baadha waxay yiraahdaan mesela askari hadaa doonaysa bay yiraahdaan inaad garato wala joojiya dhaqaaqa dheh bidixdu ka dhaqaaqaya way iyada lagu train gareeyay askarigu markuu istaago bidixda baad socodku ka bilaabi jiray haddii aad askari taagto isiraha socod bilow bidixdu buu dhaqaajinaya halka qof kale laga yaabo mar inuu midigta qaado mar bidixda kolba tii u fududaatay inuu qaado idan aqal al baatin ku bay dhahan waa waxa loo dhiibo waxa loo dhiibaanay in lagu celceliyo bay ku xidhantay faatixada miya gaftaan faatixada goormaad akhridaa adigoo aan soo jeedin baad akhridaa salaadaad xidhataa allahu akbar sidaad u wadwaday un baa maskaxdu iska tagtaa faatixada wala daalin tumaad meerawda soo ma jirto yaa akhrinayay ilaa adigu waad maqnayde yani aqli alwaaci baa maqnaa aqligii soo jeeday ayaa maqnaa لكن عقل الباطن بادو ديبتي مرة داد عقل الباطن كو ديبتي ما ضيعنته واسكا وضيا يسقو ولا الضال انت تكون يراوضيون مركم مريني وحلميدا حفظكم مركا مرنا وحفظ اسكا الصريع وانت يرسرون انت دولك حادثي عقل الواعي هيا oo safxadaad ka fakaraysaa oo ayada ku xigtaad baadi doonaysaa oo kelmadaad eegaysaa oo maskaxdu waxba xisaabinaysaa inta wali aqal alwaaci ba xifdiga ugu jira laakiin haddaad daafiso ka kale u dhiibto uma baahna inaad ka fakartee sida faatixada loo akhriyo ayaad u akhrinaysaa idan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaan waqtigeena ka faa'iideyno oo isku dayno inaad waqtiga ka faa'iideysato aad noqoto qof wax qaban karaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay barino tala saaran nabiguna wuxuu ina leeyahay alayhi salaatu wasalaam a'jasu an-nas man ajasa 'an ad-du'a dadka waxa u caajisaysan ka ilaahay baryadiisa ka caajisa dadkaas ugu caajisaysan buu nabigu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay wax kasto aynu qabanayno inaynu ilaahay subhanahu wa ta'ala u tala saarano waxaynu u baahanay mesela cilmiga barashadiisu waa tarkiiska bay yiraahdaan aqligu marka wax qaybayo waxay yiraahdaan 10 daqiiqadood oo tarkiisa ayaa 10 saacadood oo kolba darbi daawanaysa ka fiican ولذلك bay yiraahdaan ardayga xaafidka wax qaybaya waa inuu qaybaa meel uu aqliga tarkiisin karo oo aanu wax mashquuliye arki karin oo saadaraadib culimadu waxay yiraahdaan inta ugu badan la qaybis waxa ugu fiican suxuurtii iyo wixii ka dambeeyay ilaa salaada subax ilaa intaasi waayo waqtiga bay dhaayeen jawiguna waa haadi dawda iyo qayliya buuqtoona maqlimaysid calooshuna bay yiraahdeen ma buuxdo caloosha haday buuxdayna waa inkaar waayada dhiigaba inta badan cabtood mashquulaysa laakiin markan bay leeyin jirkuna uu fudud yahay calooshuna ma buuxdo dhiigga inta ugu badan la maskaxda qaadanaysa qofkuna uu tarkiisin karaa bay yiraahdaan idan waa waqti xifdi bay ku tilmaami jireen culimadii hore inuu yahay waqtiga ugu fiican ee uu qofku wax xifdi karo waxaynu u baahanay waxa weeyaan oo lagama maarmaan oo qofka muslimka ay tahay inuu adeegsado kow inaad niyada hagaajisato oo ikhlaas niyya ilaahi subhanahu wa ta'ala wixii dartii loo qabtaa sugmay inaad niyada hagaajisataan laba waxaad u baahantahay inaad naftaada dareentid oo fahamtid oo garatid haddaanu leenahay 60 sanadood haddii second kasta 10 shay lagu sheegayo hal loo qaybiyay milyuun awoodii maskaxdaada ka mid ah baa la isticmaalay bay tilmaamayaan adna waxaad oranaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo waa dafiraad aad ilaahay nimcadiisii dafirayso waa gacantaydii xidhantay oo aanad ku dayin inaad kala bixiso يعني واحد وباهنتي إنك كلا بحسه عقلك هذا إنك تسوع عليسه واحد وباهنتي طاقة ألا كسيه سبحانه وتعالى إنك كم هاد عليسه إنك كم هاد نقدد ودب أدو أديك ستد واحد وباهنتي مركا إنك اللي وده عبشة إيو ما أوده إيو
cawaamisha nafta dib u dhigta iyo waxaasoo dhan inaad ilowdo aad mundafic noqoto aad hore u socoto waxaan leenahay waxaynu u baahannahay alcawaamil almu'athara alkhaarijiya oo ah waxa nafta dhiirigeliya maalan haddii lagu idhaahdo halkaa 4 saacadood istaag waa adagta 4 saacadood saa magu taagnaan karaysa ciqaab bay noqonaysaa xubin waliba oo ku damqanaysa laakiin haddii la yidhaahdo hargeysa maanta ninkii 4 saacadood taagnaadaa $10 buu leeyahay cid dhici lahayd inaad arki jirta ma malaynaysa lama arkeen waayo $10 baa mooda $10,000 haddii la sheego 4 saacadood oo qudhoos la sara taagnaado dhabar iyo meel ku xanuunta baad isgeejinaysaa dan noloshu waa caynka waa laga yaabaa markaynu leenahay waxbaro caraaqil baa jiraysa ka hor imanayso laakiin waa inay jiraan mu'atharaad khaarijiyo iyana ku dhiiri gelinaya dee ma mu'athirka weyn baad garanaysaa jannatin carduha asamaawaatu walard uciddat lilmuttaqiin hadday kuu muuqato janno cirkan iyo dhulkan baleeg iyo waxaan oo dhan ka weyn inaad helayso 4 iyo 10 iyo 20 batee taagnow 10 iyo 5 iyo 10 ba u ictikaaf inaad quraan xifdido waxaad kaloo u baahantahay albii'a almuthabbita inaad ka tagto dadkan dadka cajsi geliya waxba lama qaban karo waxba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tafaa'ulku waa maxay waa inuu qofku khayrka had iyo goor sheego wanaagga in waxa la qaban karo culamaa'i nafsi waxay yidhaahdaan الرسائل الإيجابية والرسائل السلبية وحلا يراهدان شيغان waxay yiraahdaan risalaadka iijaabiga positive-ka wanaagsan iyo wargeysyada ama dhambaalada negative-ka ama xun mesela bay yiraahdaan ilmaha yara quraanka aad u dhigaysaa dad tiraahdo qabi iyo waxba garan maysid ximaar weeyaan kani eraygaasi wuxuu ka dhigi karaa bay leeyihiin ximaar culamaa'i nafs way waxay leeyihiin hadii lagu celceliyo aqlul baatin ku galaa bay yiraahdaan aqlul baatinka waxa galaana hore uma soo noqdaan saadaradeed wuxuu ku qancayaa bay leeyihiin inuu fashiliyay oo aanu waxba qaban karin waxa ka roon bay yiraahdaan tafaa'ulka iyo kalimaatu tashjiica waad fiicanta inaad tiraahdo inaad adigu yara samayso tiraahdo maanta ana tarkiisine si wanaagsan baad u qaybay waa ku aqaana hebel waad qaybi kartaa 5 mirir halka u bax intaas ugu filan bay leeyihiin inuu qaybo ولذلك حتى waxay yiraahdaan markay culimada kuwan psychology markay ka waramayaan waxaad rabto bay waxa laga yaabaa nafteena inaan wali baran waxaad rabto bay nafteena ka dhaadhicsan intaad cid la fadhiisato bay yiraahdaan u sheeg adigu naftaada kor ugu dhawaaq bay yiraahdaan ma arinta ka war waxay leeyihiin intaad cid la fadhiisato waxa tiraa quraanka waan qaybi karaa waxay leeyihiin waa risaala loo diray bay leeyihiin aqliga aamusna حتى بيد هذان سيد النيجاتيف كاها واستعمال بيد وايا تضمبو قبطا بيد هذان مثلا النيجاتيف اكو استعمال يعني ما اودي كروينا ما هي فاشل هورن بيد فاشل كو قبنا يا بيد هذا واحد هذا ناجح بان وان غوليسني هذا بيد هذا واي واحد عقلك بني ادمكم hadii lagu yiraahdo مثلا iminka bay yiraahdeen faras madow ha ka fakirin maskaxdaadu marka ugu horreysay faraska madow bay qabanaysaa bay yiraahdeen diimka ku yiraahdo faras madow ha ka fakirin faraska madow bay maskaxdaadu markiiba u talaabaysaa laadii hore bay yiraahdaan waa negligible ma ku xisaabtanto sida daraadeed waxay culimadu yiraahdaan التفاؤل والكلمات الطيبة qofku inuu isticmaalo weeyaan waxay yiraahdaan bi'ada marka qofka cajsi gelinaysa inaad ka guurtaaba ku fiicanta la saaxiib had iyo goor mid ka qaybis badan iyo kaasi horbooda ku sii hor socda ninku wada dariskan maanta aan waday markaas waxaan rabay inaan idin sheego culimadeennii tagtay dad khawaariqul caada oo gaar oo qiino gaar oo meel gaar laga sameeyay inaan ahayn saynis yahanadii aqoon yahanada maanta jooga dunida la leeyay cirkay wax u diranay halkan ka baxeena inaanay dad gaar ahayn laakiin waa dad ku qancay in ilaahay awood uu siiyay ka faa'iideyn karaan waa dad ku qancay inay samayn karaan wax oo awoodi karaan nalkana arkaysaan ninkii bilaabay Watson 9 jeer markuu ka bixiyay markunaadkiiba u baxay tasmacuun laambad buu rabay inuu shido cilmigii bariga bilowga ahaa waday waa wadaa bixi weydaawn waa ku soo noqdaa waa wadaa 1000 marra buu ku shiday bay yiraahdeen
markunaadkii buu ifiyey tawaynaga wali ifisanayna laambada dunida nin baa gami waayay inuu ay la noqotay inaanu ka gamayn bahashana baxda mooyaane dabeetana markuu gami waayay un bay aakhirkii laambadii baxday dunidoo dhamina waa taa wada laambada noqotay idan waxaan idin leeyahay shabaabka xufaadda ee qur-aanka haya iyaga waxaan leeyahay bilow baa tiin haddaa qur-aankii haysaan ka socda xadiidka qayba culuum alaala qayba kitaab dambe idinkoo akhrinaya yaan laydin arkin kitaabka akhri inta aad ka qaybayso bes a'immati lmuslimiinna dhammaantood caynkaasay ahaayeen kutubtooda laabtooday ku siteen imaamu shaafici gabaygiisii muxuu ku sheegayay waa kiilo haddee cilmigu waxa qardaas ku qoran maaha buu yidhi oo waxaad qalbigaaga ku sidata un ghazaali baa la yidhi baa beri kutub soo rartay isagoo wataa tuugi heshay markaasay dhacda markaasuu yidhi war kitaabadun iga taga cimrigayga wixii aan qorayay halkay ku jiraan war soca bay ku yidhahdeen kitaab layne maalintaasuu tashada uu yidhi cidlaad qodaysi wixii dambe wuu qayba dee tuug dambe muxuu ka qaaday kitaabkiisii laabtiisa ku qayba waxaan uga jeedaa marka kelmadda tani waxay fura u ahayd inaynu soo saarno dahabi iyo bukhaari iyo muslim iyo shaafici iyo abu xaniifi iyo maalik waa idinka buuxaan hadday culuum maadiya tahayna einstein iyo kayrkiiba waa idinku jiraan laakiin ha ku qancina waxba garan maysid iyo waxba baran kari maysid iyo meel cidlaha baad joogtaa iyo aduu afrikaan baa tahay iyo kan baa tahay iyo cajami baa tahay waxaas waa sheeko daaqada alla ku siiyey ilaahay uga mahad celi subxaanahu watacaala iskuna day inaad adeegsato ragga halkan ku ictikaafsanna waxaan leeyahay dee idinku 60 cashaa tijaabinaysaanba inaad qur-aanka qabataan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu